السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ogtahay in shaahu yahay cabitaanka maanta ugu caansan dunida. Waxaa jira noocyo badan oo shaah ah oo ku kala duwan dhadhanka iyo midabka. Shaahu waxa uu ka soo ciyaaray doorar kala duwan dhaqamada dunida nagu hareeraysan. Wadamada qaar waxay u tahay waxqabad bulsho oo aad u weyn, halka kuwa kalena ay u tahay dhaqan ka mid ah dhaqamadooda. Inakeen si aynu u soo sahmino dunida shaaha. Shaahu waxa uu ka bilaabanayaa 4700 sano ka hor dalka China. Emperor Shennong waxa uu ahaa mid u safra dhulalka China. Maalin maalmaha ka mid ah asigoo biyo karkarsanaya ayaa waxaa ku soo dhacday caleen ka mid ah caleemaha shaaha. Biyihii waxa uu isku bedelay brown ama waxa ay Soomaalidu u taqaan oo ah qaxwaha. Balse Emperor waxa uu iska cabay biyihiisii, laakiin dhadhanka biyaha waxay u muuqatay mid wanaagsan. Sidaas ayay ku soo bilaabatay cabitaanka shaaha. Dhoofinta shaaha. China waxa ay ahayd kan ugu weyn ee soo saarta shaaha. Monku waxa uu bilaabay in uu u qaado miraha shaaha dalka Japan si uu ugu beero. Waa ayna baxday xilligaas waxaa caan noqotay cabitaanka shaaha dalka Japan. Qarnigii 16aad ganacsatadii ayaa bilaabay in ay ku faafiyaan Aasiya iyo Yurub caleemaha shaaha. Holland waxa ay noqotay wadankii ugu horeysay ee Yurub ee horumariya dhadhanka shaaha. Waxaa xilligaas bartay dadka Faransiiska iyo Jarmalka sida loo cabo shaaha. Si kastoo ha ahaatee qarnigii 17aad waxa ay noqotay mid aad caan u ah isla xilligaas oo ay gaartay dalka England. Marka ugu horeysay waxaa cabi jiray shaaha dadka taajiriinta ah, laakiin muddo yar kadib waxa ay noqotay mid raqiis ah oo dadka dhan cabi karaan. Koridda iyo beeridda shaaha. Abuuridda iyo koritaanka shaaha waxa ay noqotay mid caan ka ah dunida. Wadamo fara badan ayaa bilaabay in ay beertaan. Shaaha waxa uu caansanaa beeristiisa dalka China, India iyo Sri Lanka. Shaahyada ugu caansan waxaa ka mid ah shaah madow, midka cagaaran iyo midka jaalaha ah. Dhammaantood waxa ay ka imaadaan hal geed, balse waxa ay ku kala duwan yihiin habka samayntooda. Waa sidee cabidda shaaha. Shaah badanaa waxaa lagu cabaa asigoo kulul. Mararka qaar waxaa lagu darsadaa caano yar, sonkor ama liin. Wadamada qaar sida Hindiya waxa ay sameeyaan shaaha masala. Ruushiyaankana waxa ay jecel yihiin shaaha macaan iyagoo ku darsada malabka. Shaaha cagaaran iyo midka jaalaha ah waa mid dhaqan hore ah, waxna laguma daro. Sidaas daraadeed waxaad cabi kartaa asigoo qabow. Shaaha barafka ah waa mid caan ka ah dunida inteeda badan. Shaaha barafka ah waa mid caan ka ah dunida inteeda badan. Inta lagu guda jiro bilaha kuleelaha ah, sanadkii 1904 waxaa ganacsade Mareykan ah soo karsaday xilli kulul shaah kuleel ah. Waxa uu ku darsaday baraf. Sidaas awgeed waxay soo bilaabatay xilligaas in shaaha lagu darsado baraf. Waa sidee mustaqbalka shaaha. Jiilasha cusub ee cabaya shaaha iyo dadka badan ee u kala safraya dunida daafaheeda waxay keenaysaa in la keeno hab cusub oo shaah ah. Cilmi baarisyada xilligan waxay muujinayaan in shaaha cagaaran iyo kan jaalaha ah uu caafimaad u leeyahay jirka aadamaha ah. Haddaba kan Soomaaliga ah sidee jeceshahay in shaaha aad u cabtid? Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.